ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan gaarka ee aan uga hadlayno sida ay ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka Soomaaliya ugu guuleysteen dabagalka iyo soo qabashada shabakad ka tirsan al-shabaab oo maleegi jirtay qaraxyo iyo dilal abaabulan oo ka dhacay Muqdisho kuwaas oo lagu dilay mas'uuliyiin dawladeed saraakiil ciidan iyo dad rayid ah. afar iyo tobankii November habeenimo ay sabti soo galaysay ayay ahayd markii la helay furaha shabakad isku xiran oo al-shabaab ay u isticmaali jireen dilalka xildhibaanada, saraakiisha, ganacsatada, culimada iyo qaybaha kale ee bulshada. waxaana baaritaano iyo macluumaad la helay kadib ay ciidamada NISA albaabka ka istaageen taliskii ugu weynaa Muqdisho oo ay si qarsoodi ah u samaysteen kooxda al-shabaab. halkan waa guri villa ah oo ku yaala degmada Dharkiile ee gobolka Banaadir waxayna ahayd talis qarsoodi ah oo kooxda al-shabaab ay ka samaysteen gobolka Banaadir. abaarasaqdii dhexe habeennimadii ay sabtida soo galaysay ee 14 November ayay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya oo isticmaalaya xog ay ka heleen shacabka iyo qalab casri ah oo goobaha lagu ogaado waxay gudaha u galeen gurigan iyadoo aysan halkaasi ka dhicin wax iska caabin ah. waxayna si xaaladaysan ku qabteen dhammaan dadkii ku jiray gurigaasi oo ka koobnaa 5 qof oo mid ka mid ah ay dumar tahay. dhammaan dadkii ku jiray gurigaasi ayaa bannaanka la isugu keenay marka laga reebo ninkii mas'uulka ka ahaa guriga oo markii hore sameeyay xeelado badan oo isku dayay ciidanka inuu ku qanciyo inuusan gurigaasi waxba ku jirin. laakiin kooxda miinisayaasha NISA oo isticmaalaya qalab casri ah oo lagula tacaalo walxaha qarxa ayaa si fudud qalabkan ay isticmaalayaan waxay ugu hageen halka ay guriga kaga jiraan qaraxyada iyo hubka. waxaana lagu bilaabay in la qodo goobihii ay ka soo muuqdeen astaamaha muujinaya inay wax ku jiraan. waqti badan ma qaadan in la soo saaro qalabkii halkaa ku qarsadeen kooxda al-shabaab oo ka koobnaa 3 jaakadood oo qaraxyo ku xiran yihiin, 2 boorso oo ah nooca dumarku ku xarakoodaan oo ay qaraxyo ka buuxaan, qori AK-47 ah, booshka lagu qaato qasnadaha rasaasta, bastoolad Belgium oo ay ku xiran tahay dhuunta aan la maqlayn codka rasaasta, dukumiintiyo gaadiid aan markaasi guriga oolin oo ay ka mid yihiin buugaagta lahaanshaha gaadiidka kala ah nooha qalin ah iyo Toyota Epson. warqad dardaaran oo qoray mid ka mid ah dadka loogu talagalay jaakadahan inay isku qarxiyaan. gaari saaruf ah oo midabkiisu isugu jiray blue iyo madow isla markaana ay ku taalo rasaas mid ka mid ah daaqadihiisa. gaarigan ayaa watay taarika nambarkeedu yahay AB4311 taasoo ay ka furi jireen markastoo ay weeraro dila fulinayaan. ninka mas'uulka ka ah gurigaasi oo lagu magacaabo Shucayb Ibrahim Mahdi laakiin kooxda al-shabaab oo la baxeen Cali ayaa markii guriga laga soo qufay qalabka kala duwan waxa uu qirtay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab. waxaana uu markaa ka dib bixiyay macluumaad kale oo sababay in la soo qabtay intii ka dhimanayd shabakadda dilalka qorshaysan samaynaysay badankood kuwaas oo xaafado kala duwan ku lahaa taliso yaryar oo hoostaga taliska uu Shucayb madaxda ka yahay iyo qaar ka mid ah gaadiidka ay isticmaalayeen. Shucayb Ibrahim Mahdi waa shakhsiga ugu sarreeya shabakadda isku xiran ee al-shabaab ee Muqdisho ka samaynayay dilalka qorshaysan. waxa uu muddo ka soo mid ahaa kooxda al-shabaab wuxuuse isagu sheegtay inuu ka mid noqday kooxda sanadkii 2011 bishii 7. waxa uu ka hor intuusan ka mid noqon kooxda al-shabaab noloshiisa ku maarayn jiray tacabka beeraha ha yeeshee markuu ku fashilmay nolosha beeralayda ayuu bilaabay inuu ka ganacsado qudaarta. magacayga waxaa la yiraahdaa Shucayb Ibrahim Mahdi ayaa la yiraahdaa. waxaan ku dhashay Cadisoon Hiiraan baa ku dhashay tuulo la yiraahdo Deefo meeshaan ku barbaaray. aniga waxaan iska haajiray qudaarey waxaan gaday beeraha ka jiray matoor waxbaan la haajiray matooradii waxbaa xoogaas iska noqdo markii dambe qudaarey yaanyo waxbaa ka ganacsi jiray. Shucayb
oo magaciisa afgarashada kooxda uu ahaa cali waxaan fursad u helay inaan kula kulmo xarunta nisa kadib markii la soo gabagabeeyay baaritaanada uga baahnaayeen sirdoonka Soomaaliya waxa uu sharaxayaa ka mid noqoshadiisii al-shabaab marka aniga 2011 aan xisbigan al-shabaab ku biiray jidda dabad dhexdeeda laakiin maalmaha aydan gar karin marar badan waxay dawladda Soomaaliya ku celcelisay in muwaadinkii gurigiisa ka kireeya al-shabaab ay guriga dawladda Soomaaliya la wareegayso waxaana ficil ahaan loo fuliyay tiro ka dhowr jeer oo dawladda Soomaaliya ay la wareegtay guryo ay maleeshiyaadka al-shabaab isticmaalayeen oo ay kireysteen dadku laakiin fikir kama haystaan al-shabaab siyaabaha ay guryaha ku kireystaan mid ka mid ah hababka ay u maraan guryaha inay ku kireystaan kooxda al-shabaab waxaa sharaxaya Shucayb oo ka sheekeynaya sheeko dhex martay isaga iyo nin uu doonayay inuu guri ka kireysto gurigaasi oo ku yaala degmada Wadajir aakhirkiina ku dambeeyay in gurigaasi dhexdiisa qarax ay Shucayb iyo kooxdiisu ku diyaarinayeen uu gabi ahaanba guriga burburiyo soo baxay xamarani nin abtigay yaan reed waxa ay rabtay inuu guri aan ka rabaa ka waran yani inay ilmihiisu bilis u shaqeeyo cabitaan wax ka saahay guri mar raadi kariye laakiin niyo habaryar iyo waxbaan ku diraa di macna guri helay way waska laabtay habaryar u diray waxa leeyahay guri oo ma arta qol banaan cid lama helay waraan qol banaan ma baramaan hay guri isku go'aan rabaa guri isku go'aan oo aan isku kireystaan rabaa oo kaas hadii saas leeyahay waa la helaa waa in la helaa suurgal way maalin kamid ah habaryar waxay tiraadnay guri oo hadda la dhisay bacweyna ark isoo imid inta أنا اللي شيني أنا وإلالنا إذا مساكين تهود أفريقيا أبتي أيوة أنا برنامج كان إنه مرة قبل واحد وش هي مقتل أنا برنامج أكو تركلي أي قاعد دباتي وسوق قارن أنا واحد يقولي إتسلى بس أفريقيا مركو إيش الرعدي يقولي توقع أنت يقولي بس ديك أوتك هذا يقولي أروى يقولي أنا لما صدق أنا سيجي دوا كيرسين تاي صدق أنا كوكل قوي مر صدق أنا أكيرا مرك حلو بهني دمين على جارة يقولي أدم أنا رواي دمين على جارة هذا رد منكم حيث هرت أنا أقول يدينك أقدر يومين لعقت أنا كوهر مرنان هذا أنا أديك عندي كوي يلنا بيش عم يقاوى كريس وبقول دور بقول أنت هشينر ما كنت مشغاش أنا كويشين أنا شغاشك حتى كوسينا بيش مركز ساوي سينا أنا شغاشك كوسينا حبها هو يلنا أنا حاط دمين قول ما كان رناي قفكوا حالة دمين أدين قول إسكت بيش بعيد ما تو لعقتك على قص ساس والله كرتا ما والله ما يهرتا بالواي هي هرتا اسمها مقصود قريب مع العكس سارية وبالواي هرتا اسمها قول بين واحد الواي مين ويمر خلاص باش شرط ماشي دمين قرت ماشي يكون بابا دي بس أب حي نيجي تلفونك سواي هي كورني دي ما يربري أو بس بحاول أمد نيو ديار وير العكس كان العكس تنسي وير هذه معلم 4 دواي خميس الجمعة السبت أحد سوقيرو سدح بيركب على الجورة بسوقيرو أنت معنا أنت خلالها وحيرب ضمن مصنعك وإحنا دمنا واي هاي مرة نيجي أوديك سيدا بقولي أنا وكريستي شعيب oo madax u ahaa kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ee dilalka ka geysanayay gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho isla markaana soo agaasimi jiray qaraxyada ay Muqdisho ka sameeyaan kooxda al-shabaab waxa uu ku noolaa gurigan haddaba su'aashu waxay tahay sidoo gurigan u degay Shucayb yaa ka kireeyay Shucayb la fahantiisa ayaan weydiiyay bal sida uu gurigan ku degay iyo cidda uu la xiriiray نو نكان أنا التلفون كيس يالسي نين أو ما أعرف هذا كلنت أو دلالة مركي نين نو نكاس ما معلن اللي راه ما اسمع ما أنا أركن ما يسنا ما قان صوبته أنا وقولي هذين أيوة أنا أول ما حفظها واتقنا جري مدينة مركي أجان وهذا دركين اللي ذا مركي أسوورين نقولي كرس دمعي أنا خيبت سوق بعلها دحس عدد ويدي وحيرني وكور قولي كل حاجة لقى نمد دلالي على ويدالير دلالي يا لويديا نين مركا أنا قرأت السنين كمية هاي أيوة يديرين حوري نين معلن ليرة هذا لمبر وسي لمركا تذكر كمان نين كاس نيو قريها كريه نين كاس وع نين كان وعي نين جروب بهم باين ما قرأت مركاس في رواية هي قريها دارت ما فيلا ربطة ما بحارتها بس الحجر ما قري فيلا وجوانا رماين بس واي يوم كلام بركة وسي نين كان لمبر وسي مركا نين كان لمبر وسي حير نيو معلن هبل معلن كنيك مجلس ده ما كان هاي نبل يعني لمركا وسي قري كيران رواه واير غور كير ولا هلا يراد انك ما عرفت لامبرك سوسي كوري كير ولا هلا وين انت اسكو ارغنا
waan ballanay waxaan ku ballanay adiga meelaha Xaajiga oo Milisan ku ballanay ninka sidaan isku aragnay sidaa isku aragnay guriga u tasay way anfacay way mid kale u tasay way anfacay sidaa ku day guriga marka guriga daa sidaan ku dagay wixii marka dalaalku wixii say qaateen ayaga meeqa dalaal ka qaatay laba kala odayaal kala jira oo guriga mas'uulka ah guriga hore marka hore aan ka deganay waxyara guriga marka bil iyo xogaa aan deganahay bisha laano deganahay habarti qofkii la xooyire guriga dhismi hore siyaad barrohaaya waa dhismaha bedela guriga iga baxliir markay lacagta $20 marka hore iga qaateen dalaalka saddex nin ma ahay marka laba oday kala markaas oo guriga marka asaga odayaashaas u yimid odayaasha macna guriga ka sixigay marka ay odayaasha kulba qaybsanaa $20 واحدة مين ما يلي مويدين واحدة مين اسمه شيخ هذا على شباب كوسو حرة دلالين صوم نين بلا بك اي شيء ها نينك على شباب كترتين ها magaciisa ninkaas كوسو حرة نو ninkaas kulba waxa la dhihi jiray Ismaan Allah sida uu Shucayb qirayo gurigan waxa ka kireeyay ninkan oo ah dulaal iskuna xiray guriga ninkii wakiilka ka ahaa iyo Shucayb isla markaana ninkan waxa uu damaanad ka noqday Shucayb waxaana uu isna sharaxayaa sidii ay Shucayb ku kulmeen magacaaga Abu Nurdin haye Nurdin gormaal soo xaray ani wallahi hadda waxaan xiranahay 18 mal 18 mal haye aan ugu haysta wallahi ani hol dalaal waa nin dadaan aqoon ninkan igu soo xiray aqoon uma lahayn guriga saas uu kareen guriga dib ka imaado wallahi haye okay nimada aqoon iska socodsan guriga kareysay wallahi ba aqoon darab kulay noo geysay kulay waxa yacna ma arkino oo anagana alyooma iska bursanayna wallahi waxaan nooga sheekaysaa ninka Shucayb ko adiga saas ku sheeg Shucayb telefonkeyga la soo wato isoo wacay haye muxuu ku sheegay markaas guriga inuu rabo magacu ku sheegay magaciisa ma aqoonin baan ilaa hadda aqoon ma umali muxuu ku yiri markaas guriga raba haye kadibna maxaa sameeyay kadibna waxa waa niman odayaal kale oo nimankan aan ku xiray guriga geeyeen guriga leeshiyeen ka bacdi ani $20 kaliya dalaal bis waxa kale ka maqaadan $20 dalaal waa garta adiga aad u geysay marka nimankan odayaasha oo meesha meel joogeen oo ayagana guriga hayeen waa garta marka sidaas adigu hooshii ana uun guuday wax kale dhibo hadda ani aqoon kale si aan gooni u lahayn ma jiro ninkanuna waxa uu ahaa ninka sida gaarka isku yaqaaneen qofka mas'uulka ka ah gurigan waxaana uu ninkan wakiil ka ahaa ninka mas'uulka ka ah guriga isaga ayaana la sameeyay heshiiska dulaalkan Shucayb wakiilka ka ahaa iyo Shucayb waxa uu isna sharaxayaa sida ay raggan ku kulmeen iyo sida Shucayb guriga ay uga kireeyeen ninka ma taqaanaa baa waa aqaanaa wari waa nin ganacsada waaye saas ayuu sheegay ninkan ku sheegay ha marka ninka odayga guri iska lahay oo wakiilka ka ahay iyo ninkan waa isu yimaadeen waa wada intifaaqeen hadal bay wada galeen kulli 20 kaas loo reebay 180 laga kireystay kadibna aniga qaab iska baxay oo marka ninka adiga waxa ku keenay ninkaas isagana sameynka haga kulli asayaqanin ganacsada igu sheegay ana aqaan u yiri maya ma garanayna baan ma aqoon ninkan family iska sheegay oo deegaan haddaba shareecada islaamku maxay ka qabtaa in guryaha caynkan oo kale ay dawladdu la wareegto maxaase waajib oo ka saaran dadka dariska la guryahan Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa sharaxaya waxay shareecadu ka qabtaa arrimahan runtii waxa weeye nimankan guryaha ay kareysanayaan ay ka soo abaabulhayaan ficilada noocan oo kale oo hadda nimankan markay sheekeynayeen waxay sheegayaan arkaysaan niman meel degan oo ma aragtay maxaan ku wada baabuurta ku xareysanayo meel degan oo noloshooda kale caadiga ay wataan qaarkood xaasaskooda ay la joogeen soo arkamaysid marka runtii waxa weeye bulshada xil saaran weeye in guryaha noocaas oo kale ma aragtay la soo gaarsiiyo hay'adaha amniga ay khusayso waxa gurigaasi guri ka xun ma uu jiro bariyahan dambe waxaan arkaynay guryo khamri lagu sameeyo ama calaq lagu sameynayo ba arkaysay oo la soo qabanayo maxaan ku container khamra ba arkaysay oo la burburinayo waxa ka khatarsan diini ahaan guriga lagu abaabulayo dilka ba khatarsan maxaa yeelay dilku waa shirki waa dambiga shirkiga ku xiga weey marka khamri la cabo iyo guri xataa ficil xun lagu sameeyo ama zina iyo fuxsh lagu sameeyo guriga ka xun waxa weey guriga laga abaabulayo waxa noocan oo kala oo dadkii abaabulhayay iyo qalabkoodii ay u yaalaan oo waxay ku xirahayaan oo ku tashanayaan marka guryaha noocaas oo kala waa guryaha u xun guryaha wadankeena ku yaala kuwa khamriga ayaga ka xun kuwa caraqa ayaga ayaa ka liita
kuwa fuxushka lagu sameeyo ayaga ka liita marka waajib baa ka saaran ummadda muslimka inay maaragtay soo sheegaan waa waajib in la soo sheega guud ahaan nimankan ciddii u kaalmaysa ama u fududaysa ama maxaanku rahaa ku tagrifasha awoodda maalan guriga inaad kireysid xaq baa u leedahay laakiin dad wax kun sameynaya dad wax xun ku sameynaya in laga kireeyo xaq uma lihid kuwa khamr ku sameynaya kuwa calaq ku sameynaya kuwa fuxush ku sameynaya yani laguma ogola sidoo kale qof maxaanku ummadda ku laynaya laguma ogola marka wixii process loo dejiyey guryaha kireentooda qofka kaa kireysan inaad taqaanid in aad ka haysid maxaanku lahaa information in yani qofka laftiisa maaragtay degmada oo kale iyo ay ka warqabaan oo shay fiican marka aan kusoo koobayaa tacsiirtu waa shay bannaan qadarideeda iyo xadiidadeedana ee dowladda iyo maamulka ayaa iska leh garsoorka iska leh halkan waa guri ku yaala meelaan ka fogeyn xabsiga dhexe ee muqdisho waa xaafad ay degan yihiin ciidanka asluubta oo keliya cidna ma rumaysanayso inay halkan degan yihiin dad shacaba iska badaaya al-shabaab qadar cilmi shire waa madaxa kooxda sahanka iyo wardoonka al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu deganaa meelaan sidaa uga fogeyn xabsiga dhexe ee muqdisho waxa uu ku hoos noolaa waalidkiis oo ka mid ah ciidanka asluubta soomaaliyeed waalidkiisna waxba kama ogeyn dhagarta uu wiilkoodu maleegayay taasina waxay u sahashay inuu wakhti badan dhagro ummadda soomaaliyeed qadar waxaa dadka uu dhegri jiray ugu badnaa wariyaasha waxaana uu sidoo kale qadar lahaa gaari tagsi ahaan uu ugu shaqaysto oo uu ku qaadi jiray wariyaasha askarta iyo saraakiisha kuwaas oo uu ku qaadi jiray qiimo yar oo aysan dadku dhibsanayn inay gaarigiisa ku raacaan mararka aysan dadku haysan lacagna waxa uu ku qaadi jiray lacag la-aan taasoo keentay inuu yeesho macaamiil badan qadar cilmi shire oo hadda cadaalad suga ah waxa uu sheegay inuu ka qayb qaatay weeraradii ay al-shabaab ku qaadeen xaruntii UNDP bishii juun ee sanadkii hore oo isaga iyo rag kale oo wariyaal ah ay ku duubeen kaamirooyinka qarsoon ee koofiyadaha ku xiran waxa uu sidoo kale sahmiye iyo fudeeye ka ahaa weerarkii maxkamadda gobolka banaadir lagu qaaday abriil 14-keedii 2013 iyadoo dhammaan weeraradanina ay la duubayeen shakhsiyaad kale oo qaarna ay ku jiraan gacanta dowladda welina ay baaris ku socoto qaarna ay sirdoonka Soomaaliya ku raad joogaan qadar cilmi shire waxa uu sidoo kale soo agaasimay weerarkii lagu dilay injineer Axmed Shariif oo ahaa injineerka warbaahinta qaranka weerarkii lagu dhaawacay wariye Maxamed Shariif oo barkulan ka tirsanaa weerarkii qaraxyada iyo qoryaha loo adeegsaday ee guriga hooyooyinka oo lagu dilay Allah u naxariiste madaxii wararka SNTV Liibaan Cali Nuur madaxii barnaamijyada SNTV Cabdistaar Daahir Sabriye agaasimihii idaacadda VOD Cabdiraxmaan Yaasiin iyo dad kale oo shacab ah waxaana uu sheegay in weerarkaasi ay isla diyaariyeen isaga iyo rag kale oo hadda ku jira gacanta dowladda qaarkoodna la baadigoobayo qadar inta badan shabakadii la shaqaynaysay waxay hadda ku jiraan gacanta dowladda Soomaaliya marka laga reebo tiro yaroo baxsada kuwaas oo iyagana ay nisa ku raad joogto qadar cilmi shire markii la soo qabanayay waxaa lagu qabtay shaxdan oo ay diyaariyeen maleeshiyada kooxda al-shabaab taas oo ay doonayeen inay u isticmaalaan weerar ay mar kale ku qaadaan maxkamadda gobolka banaadir waxa uu sidoo kale falaash ku sitay muuqaalka xarunta maxkamadda gobolka banaadir oo ah muuqaalkan oo isagu ku duubay moobaylkiisa gaarka taas oo uu doonayay inuu u gudbiyo maleeshiyada kooxda al-shabaab si ay iyagoo faham uga haysta xarunta maxkamadda gobolka banaadir mar kale soo weeraraan qabashada qadar iyo dukumiintiyada laga helay ee uu gacanta ku sitay markii la qabanayay waxay dhabarjab ku noqdeen maleeshiyada kooxda al-shabaab oo qadar saacadda uga fadhiyay inuu u keeno xog muhiima oo u sahlaysay weerar ay doonayeen inay ku ekeeyaan xarunta maxkamadda gobolka banaadir kaas oo ka fashilmay markii la qabtay qadar iyo dukumiintiyada ay isticmaali lahaayeen shabakadaha intii ay howlgalladan socdeen la burburiyey waxaa ka mid ah shabakadan sidii jabhad u samaysan oo habeenkii weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka samayn jiray xaafado ka tirsan muqdisho
waxaana shabakadan talisu ahaa gurigan oo ku yaala xaafadda Oodweyn ee Gubta. waa guri jiinkada waxaa ku noolaa gabar haysata cunug yar oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab. waxay u tahay hubhayso. waxay sidoo kale u isticmaalaan ku noolaanshaheeda gurigan inay ku muujiyaan in gurigan qoys degan yahay si aan loo garan in halkan uu talis maleeshiya yahay. gurigan marka ay ciidanka nisa gudaha u galeen iyagoo isticmaalaya qalab casri ah waxay ka soo saareen hub iyo daawo ay isticmaalayaan Al-Shabaab. waxaana markaa kadib aan la sheekaystay gabadhii ku nooleed gurigaas oo ka warbixinaysa shaqadii ay u qaban jirtay kooxda Al-Shabaab. marar badan waxaa dhacday in shacabku ay ka gacan siiyaan ciidamada ammaanka sidii loo ogaan lahaa baraha ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryane Cumde ayaa ballan qaaday in la abaal marin doono cid kasta oo soo sheegta halka ay shabaab ku dhumaalaysanayaan. waxa uu sheegay taliyuhu intani ay fursad u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga baxayaan baagamuudada iyo faqriga islamarkaana ay ku kasbanayaan adduun dhaqaale oo ku filan. maanta shabaab ayaa lacag jooga qofkii shacab oo soo sheega waa la qarinayaa ma la ogaanayo abaalmarin hoose ayaa la siinayaa oo ku farxo oo baagamuudada uga baxo. soo hela naftiina iyo diintiina iyo dalkiina marka hore badbaadiya marka xigana shaqo hela oo aad maaragtaa baagamuudada uga baxdaan. bismillaahi raxmaani raxiim. degmada Dharkeynley oo aan deganayn ayaanu guri daris la ahayn. gurigaas aanu dariska la ahayn muddo markaan joognay dhaqaaqiisa dadka imaanaya xoogaa shakiyaha naga galay. sidaas calaa alligeed waxaanu ku samaynay baaritaan aayara. markaanu ku samaynay maalinkii dambe waxaa la soo geliyey baabuur faarisa oo xabada ku yaaliin. baabuurkii markaanu aragnay waanu ka shakinay. dib u samayn baan ku samaynay. waan dabagallay. nabad sugiddaan u tagna markaas oo degmada Dharkeynley deganayd waanu u sheegnay in baabuurkaas oo xabada ku yaaliin la soo geliyo dad rag caynkaasoo ay marmar soo galaan. marka sidaas calaa alligeed baaritaan baa lagu sameeyey. nimankiina waa la soo qabtay iyo alaabtii qaraxa iyo baabuurkii iyo wixii waa la soo qabtay. nabad sugidda waa soo qabatay. intaas calaa alligeed wixii qaraxaya iyo wixii ku xirnaa alaab iyo wixii dhan markii la soo qabtay ka bacdi anaga waana la amaar mariyey. amaal marin fiican baana la siiyey oo aan ku qanacsannahay.
kabacdina wixii ka dhaca kabacdi wixii annaguna baaritaan baan ku haynaa waana soo sheegaynaa nabadgudana soo sheegaynaa شعيب oo kooxda u ahaa horjooga muhiim ah waxa uu soo hogaamiyay weerar dhowr ah oo loo adeegsaday gaadiid iyo qoryo iyo kuwa bastoolada loo adeegsaday waxaana kamid ah shirqoollada uu soo agaasimay dilal dhowr oo ay kamid ahaayeen dilkii allaha u naxariistay xildhibaan xuseen cabdisalaan axmed oo Sebtembar 22-keedii 2013 lagu dilay afaafka hore ee jaamacadda Muqdisho xarunteeda Buulo Xuubay waana bartan halkii uu taagnaa markii ay dilayeen xildhibaan xuseen iyagoo watay gaari saarufa sidoo kale isla gaarigan ayaa lagu furiyay allaha u naxariistay dilkii xildhibaan maxamed maxamuud xayd oo Juulaay 3-deedii 2014 la toogtay xilli uu marayay ka soo horjeedka xarunta shirkadii korontada ee Enaayo waxaana marxuum xayd allaha u naxariistay isaga iyo xildhibaano kale oo weerarka ka badbaaday ay wateen gaari nooha kadibna marqura ayaa kooxda ku soo toostay dhagarta ay ku horjeereen gaarigii saarufka ay wateen gaariga noohada ay xildhibaanadu saarnaayeen marqura ayayna rasaas huuyeen taasoo sababtay inuu goobta ku dhinto xildhibaan xayd waxaan soo aaday maanta hore la sheegay xildhibaan xayl meel xayl ha sax ee ka soo baxay maarta masaa'idka maraawis hotel ku dhigan sax gaariga targiisa la sheegay xamar weyn ku yaala sax gaariga targiisa la sheegay waa noocaas iyo albaaboje gaarigaas aymaana uga waleer sax markii subaxii gaariga la soo gudi wiilkii kala wacay banaadir isku aymaan banaadir isu istaagay telefoonka ku hay wiilasha ninkan darawalka ee maalmo sarna waa warka qaadir Soomaa ninkan kale markaa ir kale xafadka imaanay imaana gaari ana wada ninkii biriga darawalka hay iyo wiilkana aqoonyaha qabsaraw ana gaariga wada rawa bas waa imaadeen wiilkii soo asracna soona heeda markii masaajidkiisa baarkin baa warta baarkaas ka dhigana gaarigi ana baxay xaafadka hotelka ridis markii ka fariis هذا حير جوجا حاسو استكنوا هذه ساعة فيريا وتاركد وايد marka saa soo gashay xir istaagtay isla markaa dhaqaaqday xagga hore inuu baxday soo kala wareegtay oo isbaakan sax wiishan ku balay maxay saaxib dimashan dirbid daba wada fariiqan dhalinyar waati sabacadii yiraad macnad kale ma wada sheekar dam istaag ma artaan gaari si gaar artaa idinka soo dhaqaaq waxba mid yeeri maayo bas isla markaa gaarigan galay dadka waa soo galeen dadka soo galeen ama xildhibaanadii nimanka soo baxay gaari soo galeen istaag qori wata geeska ku istaageen
qalab qaba galeen oo gaariga wili dhaqaaqay hore qoliyaha diyaarsaday hal waxa xaray marka staff xaray marka hal nin staff marka aqalay oo albaabka furmay gees ku soo xigsid oo saat mar khore dacay loo tii oo saaq uu soo baxsay bas gaariga sidii dhax jiray markay dhaqaaqeen aan ka daba dhaqaaq marka marka staff ku raha ka dhaqaaqeen ka daba dhaqaaq marka ay ninkaan gaariga inay baasay noqon gaarin xagga laga ma baasi karo nin aanu ila fadhiya qoriyaas nin gadaal u jira marka gaariga in shadka laga baaso ma marka shaqada dhan oo loo soo bari qofka haddii aad baaki inoo sii hormarto haddii baas dhankaan ka baasi ninkaan damba saasad ka dheesay siriga saas oo xabad ka saarni inta xusul ka saaranaya marka ninkaan ka xabad ka ridaa bas ninkii waa seedu sii way marka damba diyaar noqon iraadi saaxiib xayrniyo staff ka daas kale hadda staff ka fursad siisid خلاص هو هذا أنا ما توا مقنعير هذا وش شاكم ليه وحنا كلا أنت وكل حاجة خوري متى زمان خوري قد تاجر نك هاي هذا بيكسر وحكي شاكم ليه وياه بس كانوا حاجة هذه تروى الكثير معنا جاري يسوع أما هو يفتح مجرد درب أورع أم يجيب بريو خبط صح سمع هذه يعني وحبلنا إنه معنا جاري يقول عين أم دربنا أم كود عين أنا جاري إنه معنا وضد كل حاجة أم كنترول ها أنا حيل هذا صار إذا كانوا حيلك واحدين صار لما كان مال صار تار شغله وكلنا خبصة بس وياه نكسد بدي دو كارت مركب معناه برجع تحوا بنسل مجال عايز سعيد مكتب بنسل أفكار أنت يقول قريب مركب حلبينا أسكرت أو إسقوسيت تاجح توي عرّ الجرين سوالك فوق الجراء بس مركب حلب أورع يعني ما كنت أعمل سوى في ريال قدرت هرقد مركب مود الجرين فريج جري هرقد أفكار بس لوي بس واحد سمي ملني وتل لوكاس معنا أساس أقوم له الجرين باورك من الجبال وتل هوا قالت ثاني سوق المركب كل من كسرين قالت سوق قليل هون كوير مركب هون كوير وحير جيسي بحق جيسي بعدين صار مركب ما حد تروس واحد سوق سوقي سيدا مركب سوقينا ويرش حبتك بالله مركب حبتك بالله وين يستكتب مركب يستك أنا ولا يستاي حبتك كل شيء مركب سير صار سنة وفيري كي استافكم معك خوري سنة وأفكي شقيق أنا خوري كذا عصامة أحمد مقلوي لكن خوري سوحات أفكي شقيق سيدينه كي استافكي ها ما تحوش سيدي أسوي شيء صاحب الريدو مركب ها قولي معناها نظام يعني مركب ثاني وواحد المبتدئ أصلا صلاة وقف قولي سوحات أفكي ببقي كسينة حبضها وحبضها في الريدو بس كده ها مركب يجي حبضها حبضها كسينة إلى كده بينا صح وصور ما تصعد مركب اللي أنا شكله واحد نكتب إنه قارئ مركب كودور مرايد كور كجاب بالله هذا أنا مركب أنا هوس ودي صابت قفك مركب حبض مرايد بالله هوس شيء ده تمام هوس مركب شيء ده إن الباب كتر الراعي على روا شغله نلو براسه صح وسوقه ها مركب ويل كان دبو واحد سمي مرايد وججبي نهاد مرايد إنه كسر ده ساركيو ماشي واحد كنا ولا مرة ماشي واحد كنا ولا مرة وزير بقول هنا وانا ما تصح وانا ما تصح تعالى صح مركب sagaalkii agoosto ee sanadkan waxa ay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo uu hagayay horjoogahan Shucayb ay ku dileen degmada Xamarweyne allaha u naxariistay xildhibaan Sheekh Aadan Madeer oo waqtigaasi ka soo baxay masjidka Marwaas ee degmada Xamarweyne kuna sii jeeday gurigiisa waxaa telefoon la daba joogay oo hagaya maleeshiyaadka Shucayb dabeetana waxaa halkaasi yimid maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo halkaa ku toogtay Sheekh Aadan Madeer oo waqtigaasi ka soo baxay salaada jimcaha masjidka Marwaas حاليا نكاس الجمعة مساعد كنت كذا جمعة لا تسوي جمعة هرا لا تسوي كاسات كنت كذا تلفوني صوت الحويرة هي نينك كوي فيها برا وتاساس وجرجدين ساس وكاس ساس مياه هاي نينك واركي جمعة ما تشكوت كذي حاط وارتني على مسني وانت وارك نينك لكن تدكم حقا وحبك قدوم يعني حبك قدوم يعني نينك حوا وحير بدو فدي وجيسي وفيريا مركب هاد كرسي صباحي بكرة اسكي عين أنا مركز صفقة سوق حاجة بتجري صفقة واسكية عين مركز صفقة يردو يستاهل لو يجري يلا على سؤالتي بدون إنك نستعفى لصعدة وبسترات وقال بس مركز بريد يستاهل صار في عبارة أنا راس كثير في صار في كبعد ودقي مركز وسمعنا مركز أمام مدة جبت سكسينا وقد سمعنا إيش خيرنا جديدة بس يدي بس وأركي أنا تبهدلني وجري ليش كنتكو وليش ninkaas iyo wiilka xoog sida iyo wiilka la soo watay iyo yarka kale xasan saddex hawsha galayso adiga markaas soo sheeg way markaas waxa waa qof kale lama haayo oo hawsha adiga way bas sidaan kula tukada faydkii
marka soo baxay ayaan soo raacay marka ayagoo marka hore waxay nimiyo wadadan oo cabdishidayaan waa soo maraa luuqan waa soo maraa marka waxa idin dhahayaa haddii madan luuqa soo maro waxa idin dhahayaa niyo luuqa soo mara haddii waa fashil mogta niyo luuqan soo maro ana idin dhahayaa waa ana asaga iska dhigaa ogaada bas waayahay yidhaahdeen sidaan kusoo raacay markii wiilasha iga luuqa meelaha cabdishidaba gaari u yaalay marka soo daraxay oo soo baxay saayo luuqa soo baxay luuqa soo luuqa soo marayno بس نيكا وحاول هنا ويلي رانا صعدة كوفي نوع سوتا معوس عقارنا سوتا شارك شارك وحريها وهذا ويلي رانا وطاها ويلي كيل عليها الصور بس اللي قدر الصور كانت مصادة هذا قالوا قلت مك حبض يا كانت صادة أنا شغل كده ما مغلين بقى نيكا لو شاف كيسات أمر راح حبضها ريا حبض بقى حتى ما مغلين لوق جرام جا حبض لا مغلين كانت الصور كانت صادة هي كانت صادة كحرنا بس نينا هل ما ويل كسرنا يا ما يتنمو شقينين ونوعا كلا يدا لكن مستند مو شقينين مد عند حق يقول لي سو قاي يقول لك مو شقينين صارت كانت كلنا وايل تنا وايل كانت صوت وارد سما تنكل ورا لو صور كانت صوت ودي لكن انت لكم شقينين هذا يا ما اقول شقي جرو يركا قف قوه ما هو بس انا مركا أشدي سومر وحواي وحيك بعد حبضها مع بابا روح عليه حبضها مع حيته روح حبضها مع حيته بس بيلك اسكر راعي مركا بيلك اسكر راعي ورنمكي كي كرا سواي هي نمكي وهو شو في اليوم واي بروح قاعد ايغا وعي انا برا عررنا انه بير سوق بسوي مركو قبلني انه ميلها عركات استوى بورك ودا راعن ما كان غاري وخي قاتو كيف اخبار بس ان غاري اخي قاتون ايغا ميل سي دجي عينا بابور سو راعي انه نوغ ما وداد بنادر ميلها نوغ بس بابور بير اسلا بنادر ود وتك isla kooxdan ayaa sidoo kale fuliyey dilkii allaha u naxariistay xildhibaanad saada cali warsame oo juulaay 23 sanadkan ay ku dileen dhabarka dambe ee hodheelka ambassador ee degmada hodan kadib markii gaarigii ay wadatay ay ka hor keeneen gaari kale dabeetana ay rasaas uuyeen waxa soo baxday waxaan diiraa habaraas oo jirto xildhibaanad marka noo mishii saacada xildhibaanada jirto ma bariid yarta hayrta حد برنامج جتالي راسو بس عليه بد قولي جو مركان قاري ابسونا مركز سوق قري يد بل يدوتال قاعد قاري بدوي سوق بس بدو سارف تمرك ورك هذا الشيء شيء اللي الحين سارف على وش شيء حوجا ما أعرف ورا يرى المقلي بس عليه رأيان هلو كبير الله مش قديكش ابسن تسوقاتي حيصور راي مركا فارع ما صور راي مركا ويل كاس خلا يدرور كلام يركح حوج الله أي صور عدنا صباحني مركن ماشي ماضي هو حاليا كور انتي مريسا كانت تاخذ دورك بيجي مريسا لغه كبحدها وبطل حاسه مش يقول كرت لان امباستور انجليزي ما دورك انت ماكس جلسه وضع ساعه سالمه وسو عري وضعنا سامي دبك مرك مدا كلا وريغي يسامي انا ما لو قال كر وافيري دبك اكثر من قال كنت لو قال كنت ودي مرك لوقي مرك بتن دور لوقي انا كو فعل لوقي ايو ما عرفت هبل باس علي هذا انا مرك waxaan rabay meesha تكاسد مفتش يقول يوم مرتا أو وده وابير كل حنيس ماشي إنه استاجر ماشي استاجي وإنه يعني مال كله في أمريكا ماشي استاجنا وأنا بابور بدنا إني سحرت راس ورجنا بابور إني ماشي سكو حرت وإنه بابور كله على استاج كاسا كي كرنا إنه واحد الجيش حاجة باست لي رضعنا وما غنوا والجيش لغة سكيل حنيس جيش ساو فيري جيش حاجة باست واكنا ليبر بس جيش في مركب يرد ودي جلس هقول له هذا ماشي راس كوباشي فرتكو دي ربي الله بس يلا أنا تكاسي أسجله بس بقول كاس راح قال بس كفريس راح بريسني هذا تجربنا بارا ولو كدهني كاريا معناها شارك شال العيش طول لما كبد يقولوا بدك شال قدي سان افرت لي ترك شوينا فتني تلو شيء اذا افرت قبل يقولوا انه مرة طبعا انا العيش كودا وتوري حتى فرقه اني واحد قاعد يوسخ ورا صباح وريا بس صباح هذا برباك صبحت صح برباك صباح قبل يقول سبت قبل يا حرتي دوات مرك مشاكل سوق قارو إدارسين أو ينكسين هاي بريك بس أو تاجرين ميل كده بمرك تارجت فينا مرك كحيل سوق يوطالي قاري سوق واي تارجت وسيلة أساس بس مرك كده ما يروح وات قاري واقع يا كانوا يا بس أساس كرس خدت بيفلسي هرنا تروح في المراجع يودك سنته مركي نكا عارف مرك هذا إنه لولا إيدي بس إنهم ضروري بس واي استاف موضته كوا معنا مساكين واي مبهنا إلى تحدي البدني عاسمين ساعات دروك كبلاوي أول ما حيهد دروك كني كان هراس دروك عليه رج استاف كني كان على أساس أول بلا بجري هذا دروك هذه عنده دروك كله فوق بعد يدر سمر لود وسمر هذا بس مركي قاري أفكر شو سوى هذا أمريكا عم كي قاعد بخ مرصد ناقني أحبته بلاوي
قرر قاري أرض حق صوّي في وكجرة هذا الحق قوي في درب أسلاد أنا لوق على نفسي وحق الله أصلا لوق مركز درب وقاري سوق حبدي ولا ودني ما يمي أحيانا يقولون تاسمه بدني يعني كوي تون حب من سدها أما هذا حب ما أخذنا لكم من الماني هذا اللوات نكون ثلاثة تاسين قياسا نين دوري تون حب حبدا ومن مقول لك تاكم مرسوم سبته إلا حبدا قوي كتير هذا قاري اللوق ما قال وأصلا أرضني فرتة درب سكول واي وأسكول درب أسكول تجري فما markii meesha iskuulada tagan oo gaarigiisa oo saa u wiifay aan loo qaanan gal marka saa u sii galay wiilasha xabad ridan hatta ninka dama xabad soo riday gaariga ay murayd meesha daba tiirka ay xabad uga dhacday gaariga laftiisa xabad ku dhacday kin damba yarka damba asaga macnaha anaga xabadiga ridin xabad kamid anaga murayd naga jibis sababtoo gaariga markii la soo jaa aan wiifay bogtay ninka damba kursiga furiso qorigiisa ay la ciiri albaabkaas ay meelaha uga dhacday macnaha murayd naga jabtay markii koolay raas iyo jib madow ay hayeen wax saas ma qaraan baa sidaan ku baxay marka bish waati saddexaad oo marka aan daroolka ahaydna ma baxay ya mulugu sheegay markaas qofka dilisay marka saa u dhaqaaqnay wan bakaara aska galay waxoogaa meel aska jireen isku maaweyn aska baxay hadi iska diraa labada wiil iska badir soo gaari ala taxriis labada wiil waxa ku dajisay baa meel aan ku dajiyay kaliyan aan ugu xisaariya kaligii xabad iskaad بس تمرك صوا هاي الله أكبر ما تكون ما سنتين وما أنت حبرتي وينيدو ما أعرف فنانات ده سعادة على الله تياد مرة تياد أو فرحة عارف بسم الله هو ورحبر كلام ملينا ما تنم حي هذا بكو هاي مدة كوفة هاي هاي بلاد كوفة هاي يدو قام نيجي ترتميها وما تلاقي ما أعرف بس هو أيضا سوى سعادة على وجه رب واسمي nin ambaarito dadka laynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu dirnaxayno dabargoynaya tahay dab nin ambaarito dadka laynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu dirnaxayno dabargoynaya nin dalkiisi hooya dollar siistay baa tahay dulli ruux ku noolo taariikh joogsada tahay nin walaalkiinu dilo ku ducaystay baa tahay duul soo xajiyayo dinta dhowrin baa tahay waxay sidoo kale kooxdu ka dambaysay dilkii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda oo ay ku dileen xaafadda buulaxoobey kadib markii gaarigii uu watay ay soo dhinac dhigeen gaari noohaa deetana ay halkaasi rasaas kula fureen taasoo sababtay inuu sargaalku halkaa ku dhinto ninkii nima lagu bedelay waa nin aad is ilaalo oo dadku isku dhex daro kanoo mara kaasoo mara iska ilaali bis marka barnaamijka maalinta litas waxaa la yidhi soo baxa gaarigaa soo qaatay waxaa soo raacay yarkaan hadda soo raaca marka oo marka halkaa shaqo hore ila galay aan hadda maanta guriga la joogo aan soo watay yarkii kale u yirta haddana waa soo baxnay bulxuub imaan aleen bulxuub macruuf agtiisa baaka iska dhigay gaari waxaa inuu iska dega saaxiibaal أنا وحلا يا وإنه داهية صدقنا باور سيد أحباك مخش واي تجني بس كده جورت تكي نحكي على شيء نسك عبان بس أنا قاري بس كده باور معيوتي سعر ثلاثة ثوتي سعر ثوتي بس سعر ثلاثة ثوتي مش أسكت جوجي أبار إنه جوالي رني ونبى صبح معرتوي مركو عليه لوقا بولحي وناس معروف أكتر ناس مرة لوقت مرة سفارات محلية جيبوتي ولا ناس مصبح على وضع لوقا هذيك الإلى شو عد كلا كوما يمان هذه وارتيس بس حقي انت فين انك وحوم عارف انه صعب عليك وصور مش شاو مقصودوي انا لغه كلها هذه الامير هم قصاد على الاميره بدنا مرالي الاميره كل داعي تابشير اكثر ربي اكثر من وكلو وريجي تي تبقوا الراعي وحوم اركان يوم مش بدي اعرف خطتي حوم اركان اسكب على ربح والله بتي ما انت بقى مركه سوى هي كورن نك ماشي او مركه رشاق نكون يوم بتات اخر لغلوق صار مرو الأميرة هرمود أكتر مكمار مالوير سيب بالأميرة هرمود أكتر أما الهرمود أكتر أنت اللي جارين وقارد كده اسمه ولا بأفر مال الحوس وده
taas badanaa meesha ma ka maarmo waxaad samaynaysid laamiiraha tagay waayahay iska soo baxay horumar agtaan iska soo dhigtay gaariga intaan iskaga baakin waxay haddaan jooga waa soo wacay ninka waa soo baxay maaragta yaa waa soo baxay waay gaariga waa i kacsanaaye saddex gaari maba ka degin waa iska dhex jirnay wal isla markiiba gaarigan geerida gashtay waa dhaqaaqay marka soo dhaqaaqay waxaa gaariga tilmaamtiisa gaariga la suuqay oo kor sariirka saaranta wahay markaas waraa gaari waa gaarigaas amaleen waa fiirinay taargada aan dhag inta marka soo gaarin gaari dunjida waxaan u dhahay ninkii nimaa celiyey marayada udba siin laba naas saaran nimaa celiyey waa salaam ninkii madaxa gaari la gali aniga markii seed waa istaagay marka waxaan riyaa ninkaan nin oo taliye labaad lagu bedelay oo nin shacab istaaga macquul ma ahayn ninkaan nin waa lawan uu ka waa isqabsay taargada wala taargada ninkaan maxaa kala taagan maxaa sameynaa هذا تركض إنه شيء كم تاع تبي كسر قرص صار قارب هي بنسل وايوا بنسل مو بس أنا بنسل كله رايدا بخاف فيرا ودقن بنسل مو ها بس أسمع مرة تاني كمرة وقد كجرا مرة تاني إنه قاري وأكاه لكنه قارن من شعب تاعه ما هي هو أسمع كذا هذا وسع سقاش خال أمر كوريا حصوشة هذه مرة خالك هذه مو قادر يصير لكن كتجي قاري سكوري جو سنة لما بيصير كتجي سنة لما بيصير أجين صدق كان وأنا جوه بسي مركب مرايد هنا موجود جنون مرايد بيورد الآن حبيت أقول بيان هاي القرار كان ضمن اللي حب عم قريان بدأ مرة حبضة ولا تريا مرة نغير أنت ولا تريني كده من اللي حب يورد حبضة بدأ أقول كده مركب كابيجونا أنا رافي كان كلا حوار أوري تها بعمل كله بس مكوب ستة سوا عايز هاي مكوب ستة وعايز لما كوي داري أنا ما حسين ما خاني يقولش يا أنا مكوب ستة أنت هيدوك وأنا مكوب ستة يقول مكوب ستة بس شده مكوب بحي مركب dhagarta kooxdani kuma koobnayn oo keliya siyaasiyiinta iyo saraakiisha ammaanka ee sidoo kale waxay beegsanayeen odayaasha dhaqanka iyagoo dilay caaqil faarax yare oo ahaan nabadoon ay ku dileen xaafadda Taleec ee degmada Hodan maleeshiyadan kooxda al-shabaab waxay kaloo ka dambeeyeen dilkii sargaal ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu toogtay xaafadda Buulaxoobey gudoomiye ku-xigeenkii degmada Howlwadaag oo ay ku dileen halkan oo ah suuqa degmada Wadajir dilalkii foosha xumaa ay dhawaan kooxdu filisay waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerarkii ay ku toogteen taliye ku-xigeenkii hoggaanka socdaalkii jinsiyadaha allah u naxariistay marxuum maxamuud cabdi cadow dhabarey kooxdan waxay sidoo kale sameeyeen isku dayo dilal dhowra oo ka fashilmay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen isku day dil oo lala beegsaday sargaal nisa ka tirsan degmada Hodan isku day dil shaqaale Turkish ah oo ka dhacay gaarka isbitaalka Banaadir iyo mid kale oo ka dhacay gaarka hoteelka Naasa Hablood isku day dil maareeyaha hay'adda saadaasha hawada iyo duulista mudane Cali Madoobe kaasoo uu ka soo gaaray dhaawac waxaana weerarkaasi ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale isku day dil aysan aqoonsan qofka ay la beegsadeen laakiin uu ka badbaaday qofkaasi ay doonayeen inay qaarajiyaan shabakadan waxaa madax u ahaa nin lagu magacaabo Cabdiweli oo ay sheegeen inuu joogo deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana howlgaliye u ahaa halkan madax uga ahaa shabakada Shucayb Ibrahim Mahdi Shucayb waxa uu sharaxayaa dilalkii uu soo agaasimay iyo sida ay u kala fuliyeen إنه معناها قاري باور كسرين هاي إنه باور ما أرتا لقو قاضي ركبوا بيسن باور لقو قاضي ونكاس قاري قاس لعير صدق مركدي لقرب قالوا ما قاري قرب لقو حبض لقو شو تدي مع كهري مادن لقو هرقيو مركد نوع شقة مركد دوا ما أرتا عن حق اللي بري إن هوش ثاني عن كلاود معسكر يراب صبرتها هذه مركز صون أبو المرن ملا أجار كيلو بري أنا قبل أسبوع سنين جينا نقدر سام ويسلا ويسلا للتسي بس خلاص حاليا هوش اسمك بالهوش بالهلا بهلا هوش اسمه مركز صون كي يعني بالله يعني مركز رجع ندري حاليا هذه صاحب تكان در مركز درتو أو هوش الصون بيستان نين هل ما اللي بار مركز دارول كه هل نقول يوجوا كدرا نين كلام مالك لو كيمانا سدح وها سدح قف بس أو قليه إنه ضروري لبن لبغري وطن مركي وحسوا سمعان قاري كقات قاري جيرش جيسو قري هذا جيسو هوب كنا حري وحي بابور تاس يهوب كذا مسؤول كده سويه لما أنت رئيسي وكلمان توريسي وحنا مسوق بين قاري وده حبض وكان
gaarigu muraayadaha dhinac ka jabanta ka jaban tahay mashoobil ciidan jooga niman asay rag isla socday is sheegay is qabteen war meesha xagga askari ka taxkuma kala karmay waa ku geer kartiin waa is qabtoo murmeen inuu ka baxay oo iga dagayna oo dajiyay oo kaliis soo laabtay meeshii oo xabad baabaca ku siiyay markii niman laami sameeyna uu sheegay si manana had meelahan iyo baawur xasan ma qaanay wadada ma arta nasaabada markuu ku waxay sameeyeen markaas ani dib baa leeyahay waxay ma garanay nasaabada wadada nasaabada juwaanaha cagaaran oo airport meesha looga leexanay gaariga ka soo jeedi ku macnaha meesha soo xadidin marka gaariga xabada lagu dhintay muraayad dambe iyo laba muraayad baa jabtay gaariga muraayad oo xabada ku yaala nimanka Turkiya lagu sheegay Turkiya nimanka Turkiya ayaan xagaji ma waxay watay waqti isma taam lama gaar laakiin waxa xoqay isma leeyahay marka waxa iska taay ku tahay xabada ku ridir kiisa kaligiisa xabada nimanka labadii waxay yiraahdeen inuu meeshaas ciidan jooga meesha kuma sameey karaan qaati amar qabteen way diideen keenay marka waa ka qaaday Turkiya ka kala baxay gaariga marka xabada ka taaliyo marka xabada u gashay muraayadna waxay dhawaa shax qof walba gaar kara sama soo sidii suuqii keenay waxaan saa gaarsan guri lama geeyo sheeka baan soo qaatay على مراس مدينة الجيسكي عمل هذا سي باهي كسر خضراء إنه مري سي معلور سي من هذا بدنا أكتر مراس يركب مجال مكلا وقول نقول له من كثير من هذا أكتر تاجنا مش أوقات تجي شكبانا قاتي ضدك إليه وما قالوا ولا صاحب بدي أتوقع صاحب بس مرايدا كتجيبي مرت مرايدا كتجيبي قالوا سي باو أسيا قرينا ساوت معه ولا بدي أقول هذا لو قالوا سارين ويلي شيء مركز اسكو دعانو ما عرفتها اسك دجي حبد كوريدي ماشا كوميدي كرني يراده انه بحي ولا بير ميلان قالوا يقدر يقول اسك دجي او كلي سو عشتي اسو غاري وتا بيرو قبط حبد كوريدي بابا بدل كوريدي او ارض حبد بلا بر سي حبد كودا صح ما قال حمد قال اسك بس مرايدي يان اسك اسك جبي markii waxay baashaniyo maraydaka waa xabad soo dhacday gaarigi waa soo jabay ninka kor Abdullah la hadlay markii lacag la soo tuur xalay gabalkii ka dhicin baashas isla markiiba gaariga la soo booday geersha mid meeshan ma lama afraad ka gatay marayd ku geersha u giibay soo tilmaamay meesha kuwan qool dhulka joogan maarta marayd ka helay mid kale meelaha maarta waxaan ka helay oo Iran waxay meeshan maarta xafadan dhabarka oo markii la istalkaan digfeer jiris makaaniga badan ay joogan xabad meeshan ka helay isla markiiba gabalka madana baalkii maraysan okay ka dhigay darbigiisa xawmay gaaray markaad marayd soo taayirka dambe iyo meel hoose wax waxbada ugu taala kaliya taayirka dambe isku xilay waxa macnaha waxa ari gelmis soo keen markaas noqotay xaaladii waa soo aniga dhaxay isqabsanay waa maxaa cabsi iyo saane maxay tahay wilishi horta markaas waa iska cidi ay soo diraa liirsaa inta loo diraa meeliki maadan lukaas bara way tahay marka mid aan ilijo kan kale ma aqaan magaalada ka soo raajina mugtay kiilijo leer hadda baa soo raafila sayid ay say orda dhaafayno meesha nin fulay wala oo baane aad soo baxal wiil orda sida ku baxay ninkii darawalka ahay markaas gaariga wadi iyo nin kalanta halay keen markaas oo saxaafti ma doon kii darawalka markaa maad gaari wadi aan leeyahay maxaa sameeynaa leeyahay kasaan biris waxaan wada gaariga way ana ali abri wada jooj bay ninka raadina ma yuma biri ana ku nasiibsanaa baash bas way yadir subi ana gaari soo wadi bas ku jumaal dama leeyahay waxa laga rabaa nin kalanta oo argixisal dararkeed oo dadka telefoonka aad khatar u ah oday weyn ajiro waxa la rabaa in laptopyadiis iyo wax wadaan shirta in ka soo qaadaan maanta loo baahay laptopyada bis ama sa laptopka isaga dila ayaga dila ka bacdi daga baawarkiis baarta ninkaas isirka soo qaada inta soo maraa way ama wada dabka soo baxa wada dabka budooyinka maraa way soo baxa dabka meesha mid ala sayid hal saac amal taglib meesha iska baawarsi baakime ilaa 3 saacan iska baakime si gaariga wax soo socdo wax soo 3 saacan gaari iska baxlir aska baa maanta kala imid hadana waa isru waxay wax soo istaagay iska baa waa ninka maanta waa baaqday waa iska baxay admuddo loo basax ma amal aska maqnay hadana maanta la soo baxdana meesha tan soo dhigtay meesha tan soo xaalay soo markaas wiil kale iyo waxa la socday iyo ka la socday la joogo ka tabuu inta joogo baarax oo yaxan ku xiran ay la socdo markaan kii darawalka ahay waa soo aska reeb ila ma jiro macnaha waa loo yeeri qofkii wax gaarin kan haysta moogtay ninkan ali kale joogo waxa liiray yarkii kale tawaa yar kale yiri bas waa imid maashi hada meesha istaagay wax baga joogo xogaa yar joogo wax soo baxay soo baxay waxa uu markan ka wuxuu aada liiray wadada lama afar waday ninkii soo kala wareeg yaa dhaamad ninkii koray dhaamad ninkii koray leeyahay lama afar soo aaday ka soo daba baxay
baasha lugaha weyn oo maarta waxaan wataa god balaga qabanay waa soo kala wareejiyay lamigan agta soo saaray marka ambassador ku soo dhawahay waxa la ninka waa soo laabtay ee wadada ku soo laabtay wadada u sii galnay waaye waa kala wareeg telefoon lama dinta qadka ku jira dhigaya qadka iskaga jira waa kala wareegan bari marka saa soo kala wareeg on meesha wadada waa bari aas inta soo gaaray waxaan markaa fiiriyo ku tahay kul kartaa ambassador agtiisa soo dhaafayno wallahi wadada meesha xoro taraf ka taagan inta la gaaray ambassador meesha ma arta tareeb yar ma liirada adiga meesha aan fiicantay marka gashana luuqan isla dhigo saada meesha lagu galo ma arta bawlka lagu helay meesha ma ka degtaa meesha isla markaa waxaan meesha ku sug marka يا بلا ما أباك نكتي هاي ممكن يكون ديارسان خلاص ديارسان قريود مرات هلا قرص أو ساعتين درس كده في النهاية ده هو في الناب ونكى نصاب له هذا نكى حاسة مينا ويد مكني كرة دمته يا نصاب له هذا وهي وضده وبريء كله حناي وضده نصاب له وبريء بيش يجي سوداعي أسكت ضيق كجار مرة حتى إلى نص سهلين هو بقينا دي وينني يوم تيسا حكي من كان بس وهي بس سوق صغير إنه ما يعرف جلاس ورجلين وضده يوم كعربي كارو أتحوار وأرضي marka wadada ku baxo aan xarki gaariga marka gaarno hada midab gaar ah ilaa marka midabkii la tilmaamay waa shan baabeed ar water midabka buukas amal ilaa mis wata yiro ya wiilka baayda wata tarkada mata ha aan marka waxaan diiday gaariga dan bereeg jirir ku soo siini ku shakir qad soo yagal bereeg waa ku sii wadada waxaan qaaday oo tikada ay smarta xarinka inta soo aaday ku siftaas marka saa u kusi meesha calanka ku furiyo ma darbiga dheer oo dhakan laga qaban calanka xor intan gaari aan bariig qabtay isla markii xagga bunto oo lahayd ninka dama fiirna marka ruux wadadii waxa uu lahayd bunto ka lahayd war meel fiican oo galay meesha isbeel ka gaarsiiyo soo kala wareego waa ka soo daba gal marka tan gaariga wax aad u arag marka kan saa soo galo arkay baasho dheer si ordis waa in dareentay ma aqaan ina dareentay yani ma garanay iska horaday hadana waa soo ceersay waa soo ceersay ترتيب سقطت تر واحد من الجمود وتتودا سوق شيء ولا برضو تصور ما ولقينا مبتدئ تصور ما تحاول ولو علنا ما نيجي أديك علنا بس كاري وكوي مرك كاري يهم يا أنا دعيس مرك ما لا إنا باسين طلع يجا سين مو أقول مرك تمو بس بني واي باسين ممكن هم يدا باستي أنا كوي مرك مرك سان ما أرتولا سين هذا ساو سوير ولو بلا حبط بطلكم بالله بين مرهيد سوى جبل ويدي معنا حبت الساعة أقول دستي نيكا دم الصوت تنقول كل دمي كان عيرو كريبة دي كده مركب حبت دمي ويروح كل دم قو كده حرتي عير دقة دقة كسوقات الميكا لابتوب كنا كسوقات بس والله هاي واحد وثاني راد بس والله مرنا صرت انكرنا لابتوب كنا سوقات وأسخن ما كده ما يركض ما مركب أقول هو إنه دقة كان كده بتو كان أقول اللي تاجناد وكان مركب واحد صباحي واحد صباح كان ويردي واسكاب سنه انا اسكاب سنه هو شيء وحنا راح امرتس كل ما تبغى انت دقي ما انت اسلينا حوغا وقتي نو قاد هذه ما يدكو هيان غاريغا بريك كعمر بس انت انت كرسو واي ور ما عرفتي ور واركا ابنك هي لا تمر ور لا ما قادر رغوا امر مين صاحب يا ودغان ما دغان ما خصبان بس سيبو سو بحر استمرت وانا سواي قلبت عمل هذا نكرت هو نورت ونكرني واكو دنتي لبن نو كلا أو أنا أقول تاني أمر متى لبا مش كله كوي أنا ما قاعد اسمه خاني لكن هذا كتريح اللبات أو أرجع زل درجة هاي تبان تاسع سياس كيف بحناي shabakadan dadka ka tirsan ee gacanta dowladda Soomaaliya ku jira waxaa ka mid ah Aadan Cali Cabdi oo shabaabka u yaqaaneen Faarax waxa uu aadan ka qayb qaatay dilalka 3 xildhibaan 4 sargaal oo nis ah sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dhaawacii maareeyay hay'adda saadaasha hawada iyo tiro isku day dil oo fashilmay sida lagu ogaaday baarista nisa laakiin waxa uu isagu qiraal yahay inuu dilay 3 sargaal oo nisa ka tirsan kuwaasoo lagu kala dilay waa bariya buulxoobay waxaana aadan iyo 6 qof oo kale oo mid ay haween tahay ay weli ku adkaysanayaan fikirkoodii takfiirinta waana kan aadan oo si kooban ila hadlay aadan ala shabaab maxay ku yaqaaneen shabaab maxay yaqaaneen Faarax way goorma ku biirtay ururka al-shabaab wuxuu biray dhowr sano la joogay axmed ismaaciil laga saaray oo xagga dagaalka ku dhacay markaas uu ku biiray marka hore Kibuni waa sutay macnaha iyadoo dagaalka dhana reeraha fasax qaad meel baadi ama
dagaalka dhamaaday kismaa imaaday shabaab siyaa kusoo raacay sanadkii aad xusuusan kartaa maaltaas ma xasuusan waayahay waqtigaas muddadaas dheer aad shabaab kusoo jirtay bal waxaad sawir iga siisaa shaqooyinkii kala duwanaa ee aad qabatay ururka al-shabaab dhexdiisa waan ka qabanaya hor marka hore muxuu ahay marar ragga magaalada oo jooga boolis ahaanta ayaa ka tirsanay marna rag oo duurkaas jibadaha jooga la jooga ka bacday waa soo baxay waxaan soo joogay boolis u hayay ayaan hadda ugu dambeysay jilib ayaa kasoo baxay nin cabdil ayaa kasoo diray oo inta shaqadan soo aaday shaqadii marka muxuu dhahay shaqadaas amnigaas qabanaysaa waa shaqo amniyaad waay shaqadaas aan muqdisho ka qabanaysin shaqadaas ma yaa ina qabatin raasay marka inta 4 bilood si meesha ku jiro afartii aday ka bacdi jadaaca oo bahal jadaaca leeyahay ugu dhacay xanuun iyo wax bay qabsaday guriga iska jiyo meesha laga soo qabtay darkeeli way marka waxaad ku jirtay ragga laga soo qabtay darkeeli guriga qarxeeda ku jira ha way muqdisho intii aad hadda joogtay waxaad qabatay shaqooyin dhowr oo ay ka mid yihiin dilal laga fuliyay muqdisho oo laba howl kale ma ii sheegi kartaa dilalkaasi sida u kala dhacaan iyo saaga aad fuliseen midka koowaad adigoo bilaabisay midka koowaad horta muxuu ahay ba ii sheeg xamar jajab midna bulxubi ahay labadaas kala qabanay labadaas ayaa isla qabanay adigu ka qayb qaadatay cali ma ila socday marka mabda'iyana laakiin u aaminsan waxa aad sameynaysa inay saxiix soma ya okay mabda'aaga hadda maxaa iska bedelay sidii baad u aaminsantahay ya hadda mabda'aaga weli sidii baad u aaminsantahay aniga si loo aaminsana waxaad u aragtaa dadkaas inaad xaq ku dishay ya dadkii aad dishay waxaad u aragtaa inaad xaq ku dishay si loo aaminsana ya dadka kale ee la xiran Shucayb iyo Aadan ee ka mid ah shabakadan waxay iyana kala yihiin Xuseen Shuuriye Maxamed oo darawal ka ah gaadiidka ay shabakadani adeegsan jireen Xasan Cali Guure waa xubin shabakada ka tirsan waana ninka ugu da'da weyn wuxuuna qabaa gabadha guriga wax ka deganayd wuxuuna ka yimid gobolka Hiiraan dhawaan mulki maxamed guure waxaa qaba xasan cali guure waxayna ka timid dhawaan gobolka Hiiraan iyadoona u qidmaynaysay shabakada isla markaana waxa intaa u dheerayd in dhawaan loo diyaarinayay inay isqarxiso maxamed bakar shariif wuxuu ka tirsan yahay shabakada waa amniyaad hore oo laga soo bedelay Baraawe wuxuuna fakiyay gaari caasi ah oo shabakadu adeegsan jirtay isaga lafaantiisuna waxa uu gacanta ku hayay mid ka mid ah baabuurta caasiyaasha ay shabakadu isticmaalaysay xuseen cabdulla sanweyne waxa uu ahaa wardoonka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gobolka banaadir iyo sidoo kale waxa uu madax ka ahaa abbar ay talis ahaan u isticmaalayeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ah guri ku yaallay xaafadda albarako ee magaalada muqdisho xuseen sanweyne waxa uu ahaa kooxda al-shabaab horjoogo muhiim ah waxa uu si gaara ugu qaabilsanaa marka ay goob wax ka dhacaan kadib inuu goobtaasi tago soona indhaindheeyo dhibaatada ay halkaa ka geysteen maleeshiyada kooxda al-shabaab si uu warbixin u siiyo kooxda shabakadan waxaa tir ahaan lagu qiyaasay 10 qofood oo dilalka fuliya iyo dad kaloo fududayaal ah waxayna adeegsan jireen ilaa 5 gaari oo kale ah Toyota Saruf Blue iyo madow isugu jirta oo taarikadeedu ay tahay AB 4311 Toyota Carib cadaan aan taarika lahayn Toyota Epson cad oo aan taarikadeeda lahayn Toyota Homey taarikadeedu ay tahay AC 1515 Toyota Noha taarikadeedu ay tahay AD 862 gaadiidkana ilaa hadda waxaa gacanta Niza ku jira Sarifka Caribka iyo caasiga waxaana lagu daba jiraa labada kale oo qaarkood la helay dukumiintigooda waxaana la wareegay dhammaan 3 gaari ay adeegsan jireen shabakadu hay-adda nabad sugidda halkan waa mid ka mid ah atalisyada qarsoodiga ee kooxda al-shabaab ay isticmaalayeen waa dhismo yaroo ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana uu ka mid yahay talisyada hoostaga Shucayb
taliskan waxa uu kaga duwan yahay talisyada kale ma ahayn mid la dhigo hub iyo saanaad laakiin taliskan waxaa la keeni jiray maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan marka ay doonayaan inay sameeyaan weeraro qarbudaad ah waxaana halkaasi loogu keeni jiray hubka ay doonayaan inay isticmaalaan taasoo looga dan leeyahay in maleeshiyaadku aysan arkin taliska runta ee kooxdoodu ay hubka ku qarsadaan kasakow dilalka qorshaysan waxa uu sidoo kale Shucayb Ibraahim Mahdi soo agaasimi jiray qaraxyada ay Muqdisho ka sameeyaan kooxda al-shabaab kuwaas oo kii ugu dambeeyay uu diyaarinayay lagu qabtay gurigii uu deganaa oo dawladda Soomaaliya la wareegtay gabi ahaantiis gurigaas waxaana weeraradii soo agaasimay ka mid ahaa weerarkii xaruntii UNDP ee Muqdisho weerarkii safaaradda Turkiga ee Soomaaliya iyadoona weerarka xarunta UNDP 6 qof ee fulinaya lagu keenay xaruntaasi gaari minibus halka hubka ay isticmaalayeen guriga uu deganaa laga soo bixiyay waxa uu sidoo kale Shucayb soo abaabulay qaraxyo fashilmay oo ka dhacay wadajir kuwaas oo gurigiisa lagu diyaarinayay waxaana ku dhaawacmay xaaskiisa iyo gabar uu dhalay safaaradda maarta Turkiga ayaa ku xigtay ayada macnaha luqan ku lahayo maarta ragga guriga ka soo diray oo waxa hubkii waxbaan soo sii waxa gashay afar gashay nooy galab ay galeen subaxan rabnay waa naga fashilantay marka dama galab la galo waa waqti kale inta walaaki waqtiyada soon ka dhaxaysan ka dheereen marka tii hadii dhamaatay marka ani barnaamij isbedelay waa kullu ninkii markaas noo amiirka noo ahay malaaqa marka dama qarax diray qarax ku dhintay bas waan magaalada waa ka baxay lafteeda marka horta arrintaas horta ugu dambeysay oo abaabulkaas soo rogal ayskan dambe marka waxa ugu horeysay hadana qarax asay malaaq soo ugu dhintay qarax macnaha uu xirayay soo dhulku yaala meynisi bal waxaan furo leeyahay mogtay waa diyaarinay ma waa diyaarsanay laakiin shayga markuu diyaarsan yahay wixii dabkiisa waxa dhow kala kaliya la Soomaa marka isku xiray waa xal oo marka isku xiray in qofka inuu laambadan hadda makiinadaas oo kale taadii cabitaanka ugu shiido hadday ku shidan tahay aad saa u glis maxay bilay hore waa shaqeyn Soomaa marka waa sidoo kale macnaha dabkiya joogay soo macnaha oo furiyaasha u shidan yihiin sidoo kale ka baad marka waa ka baad gurigii aad degneedo kula qarxamay oo cid ku joogtay cid joogtaa cid sayr cidi kolba maarta gabadhu waa dhaawantay anigu aan dhalin way dhaawantay gabar kale adii saddex mala mashi gabadhii aan dhalin way dhaawantaa xaaskan way dhaawantay gabar kale way dhaawantay dawladda timida qabatay anigana waa agteeda ku baxsay ay soo fatkan layniyo kolba muddo 14 maalmo xirneed kolba waa la soo siiday qabl ku siiday ma aqaan gabadha abeed waxa uu yimid way dacwadeen oo la soo siiyay kolba xalin ninkan qaba walba gabadha saaba maarta wax noocaas marka hawshii waxaan galay abaabulkii waxaan galnay inuu markaas UNDP la weerar UNDP ani markaas waxa iga horeeyay maxkamadda weerarkeeda iga horeeyay xilliga maxkamadda marka raggaas kala watay hawsha malaaqi yara kala saalax dhijiri raggaas kala hawsha watay laakiin dhigta waa baada ka warhay macnaha dhigta koray u taagin laakiin markaas alaab hay ama rag dad loo keeno oo dad kala dabir ma ahan bas maanta ma xaliirni waa UNDP ga baa la hawsha la galo cali waxa laga rabaa inuu hub qaado hubka gurigaada geesa hayso amaanada islaamka adiga maarta ugu aamini in amaanada xifdisa laga baahay ilaa maalintii loo baahdo laga qaato istuwa yahay hubka li keen hubka marka aniga markaas waxaan xaggan ka keen ana xag marka aakiyaasha iyo rasaasta xagga ka keen laakiin qori BKM iyo qori RPG hore xamar u yaalana waa ina inta laga sii malaaqaas ay keen hadda xogaa taxli waxba ahaayeen guriga geestay wixii waa dhaqay waa sifeystay waa diyaar galay meel ku duuray haasa u malaha bas wixii gurigaas ka geystay maalin waxa kamid ah rag li keen waxa leeyahay niman saddex li keen waxa leeyahay nimankan kuli joogan hawshaas la gal rabaa sirta hoos loo dhigo بس واي هاي ها ولا شيء UNDP لا قال ولا شيء مش معناها تركبها معناها لا تسوي ولا تسويك ولا صوت السماء شيء هاي بس أنا ولا شيء ما شاء الله ربع وجو هواي أنا قلت ها ورك يقول لي يجري وضده هرجع برجري ده هرت بس كم رجلي سوا UNDP لا بيجي تكاسيد باور تمر جت يريد كم مر بس واتن دار الباب واكن عليه بس رجع مركز قال له هاي هذا أنا معناها ركز بلاقي واحد هوش إذا مكتئب ركز أبغى قاعد يجري أيوة لما نسدح ما أنت ليه كم حالي رتاحك وحال قربة
fikra looga baahay gurigeyga guri baa u galay maahan qori RPG iyo BKM siriska si loola bixaa loo baahay magaaladiina cadow joogo say qaabka lagu la baxaa ruuxaan idin waxa sameynaysiin gaargacan horta noo soo gada gaargacan baa soo gadan ma farsamaysan halin xoog la ragga oo hoosh u socdo sheed u socda soo nawayn xoog la guriga la keen sababta in xaafadda degan baahay in gurigan degan hadda meeshan gaargacan ku dhex riix waa si wax ka yahay in gurigan wada degan gaargacan gareexay la oqon la keen marka bas waay nima istaxan li keenay ragga waxa gaargacanka yaa iska anaga iskala soo gadan soo gadan bas waxa samaysanay wixii u diyaarsanay qolgii BKM ka hayaan kala furay jawaana ku dhex riday RPG-gi sidii jawaan ku dhex riday rasaastii RPG-ga ayagoo sidoo kala furay waxaan ku riday qamdurkii loogu talagalay wateen wuxuu jawaana isku geey qori aakaashana boorsooyin caada siirti gaargacanka tusha ka saari ninkii maarta BKM ku qornay waxaan hadhow gaari dhexdiis BKM siliska ku dhibay guriga ugu soo xiray silis guriga ugu soo duubay marka dhab ku siiyaan jaakad weyn koor u geli koorka marka hor shaat dartu ta u xiray marka tuuta xirti aan silis ku duubay ma silis u xiray aan jaakad u xiray guriga ugu soo xiray ha idan ku arkaan ingiriiskan ma guriga gudihiisa ugu soo xiray marka qof soo baxay tuuta ku soo baxay shaarkas marka u geli koor baa u geli marka koor weyn u geli shaar tuuta muuqan maay marka sarwaalka la isku kurkashana ama wuxuu ku kashana macaawis مساويش عن يري جني قبع عن قادنا باور ده يسلو كشجر على حاسة سيدا كنت ياري يمكن سيدا كنت يدي جاري هو ميا معنا نوتي نشأ الجاري إنه هذا ما طلعوا طلع لي يرد كله فتا نك هو رأي يرد نمكو بنيناي هو ميد ما كأسكال أنا كأسكال هو ميد هو ميد كده واجيني سوال واجيني وعلني سوا إذا والعلني يا لو قمت تلاقي ذي شادي كم مرة نجواد سيدا على سمي يمكن هو ميدان أنا حكم كان قادم مركن هو ميد هو كأساري وحنا كوريجي على هذا شغال وكبح عليه صح رجع لو مركه هوش كل رجع كلا شاكله هو كي مرة ده صوب وبابور كسرتي ورجع توتي وحنا كوريجي صاحب حفظ هذا كيا صاحب شاكو ميد والتان شاكو ميد يعني كده جيس ها صح بس كارينك إنه هذا هاي نبى على السعودي نمك هو ميد نما وضع أو هو بيسألنا ولا صدق أخ ماشي الله هو يودي بأنا وأوجي مقتل بس الرجل هو يودي بيجا إنه يودي وفاسين مقتل مركز شغل سان أودجست لفتي بيا على صورة وحاسكين بالحيو ده سكين يا حسين معين عليه باش تذكر ورس كم حاجة بس السعودية وحمات وحن أوجه وحيير الدول أقوى تذكر أسكور ده ورس كوتا وضد إيربورك سكسيور أنا حاجة أوجه مقتل وضد إيربورك سكسيور ده وريا حوش شقائر ولا قاعد قاعد نهضة ورد الظهر واحد سهرك وما هي يا واحد شيء واحد يا كوا عليه صح مش اسكف ريستي بل شهر عبا شهر كده حوير درادر بسم الله أنا كنت مريا إيه كائنا هذه دردقاقي اللي يرايا مية تاس لما كورا هذه عب دردقاقي يرايا إني إرادة لكن أنا إيه برتيبه وجوجين نك أبتبسا جو وان عبتام قصصه من فينت وضع واحد الساعة وارك الله لا مساكين تمام مراسيق يا صاحب ولا حبوا آداب برسل لكن حتى ترى هذا وصرت إسلام كافك أفك سوى هذا ترى إنه قفك على إن قفك اللي قال أشياء قفك أشياء صرت إسلام كافك شيء سامع جهاد كي واحد شيء اسمه قطرت بسكون تاني مركو حاصل ما شيء هذه أي واحد جواران إيه الكحو جواران صاحب وحاول ويحوش شغل استاك هرين هذا لكن أي واحد جالس معه كم سجارة سيد معناها دين تعلمون نوش شجر أساق ويحوش شغل استلي إلى حسابنا مش أساق أقدر واسمعها وير تنكر مركزنا باش مركز جو ترى هذه هم يدي مركز ركض ده ماشي كيس مركز رجع مركز هم يدي أنا بركض دبوا حاجة ما أعرف ليش حيتك الدرين حاجة سمعنا لو ترى يا أنا بقول جو ها نيجي دروا على سعودية دينوميد ده مركز ده مركز باش شنكرتي رجع يودادي نيك RPG وحلاوة ترى RPG خورا أكيد كدير RB قري أكو حقوق تحت جاري مركز ميدي RPG مركز باش تبي بلا حماسة ده شغال دامينا وإسكين RPG سوى العربي باش أسكت بلا تفكير وأنا عاد واشن كرت مركز أروح عم بيربا نمك إني جودها أوجلين إني سجودها أوجلين باش لما مركز حين أمس طبعا يبص أفجرته وحاول نمك بنانك ومعناها بنانك باش فوق دمات حقا الحديد وين سجارة لقاعد مروقة سجارة تبكتها بس هذا جيست مركز حبض يا صورنا عليه حبض يا مستي لق ما أرتب بالحيو كوري أدبك حفظ فكر أرتب حفظ على سوير دول عليه نيو باش ملايين مك شو بنانك ورا بقى لود من مك سياحو جرا وحركوا قدام مقلة وحام مقلي
babagacmeedka marka gudaha ka shaqaray ragga babagacmeedan ku ogaa mugti babagacmeeda gudaha ka shaqaray juu waqtire oo back amna baka gudaha galay waxa bes hadda niyo hadda kubshinka aad cabi kartaa israac markay kala kubshinka ma jirto waqtiga isla markii biyo aska raacay marka xaafadda iska tagay xaafadda dadka ninkii soo waxay niyo nimankii gaari qori ka qori baawur wax tageen magaalada waa kacsanta ani baawur hoomidi waa la baxsaday ni hadda madiina suuq weyn aan joogahay niyo kala qori ay qad oo soo orday yarkaasna wadaadadu kamid yahay ها ركب مده ها صالح علي هذا الرقي ونقص مي سيد مقليني وقت انت مقليني نلك لو كنت هذه توي وحاجه سو اور لاغات بس اصاب حي قومت خرج كا بورسوين ممكن لو قاعد مت قاعد واحد جري بس هل بورسان كو دحرتي ترتيبك واحد ير لوين صح هلك ان كل وين مجي كري لوين جاي وضاس سياسه قاعد جاي سميتان كدق بورسي اسقات وان سفر كي ما مسك ما هيبو بورسي قرا بورس كدحرتي ملاقة أي مرة نمشي أماكن نمك بدنا نسوي مرة نمكي جودها قال نك مدة لما ركزنا هنا وعنا وروى بقى حينا دبق لبات بانصارنا ودبق لبات والله هبل يرد كل شيء دي هبل ما عرفت وداوع أو ما عرفت أو خطر أسجن ما عرفت داوع تقالم كرمها هبل لو داوع فوضى وتقالم كرم أي مرة وحي هين لحنا هين نك تتواضع نك أصغر هين أنت تقالم لح هين هبل وش هيدي هبل لو داوع علس واي وحنا نقوم يال هبل لو داوع فوضى سدح كفيونا واي يهبل داوع فوضى دقالم كرم مركي مد عضان أفريقيا بكرتاجنا وير إسلام ناك أفريقيا هذا وينا كرتاجنا وير واربو اسكعب انا بيه نعب نمي وهشي نشغشته هذا كل صار له ياك ملاق والله انا مركز هذه نين واسع اي بوتا مركز انا قيب اديق هوكا هاي دي بس ايماني قد كوين يقول بقال وحسين لكن حسين هذا حسين يركع انت تمت معده نفر هاي ما شاء الله حسين لي اسكب حني مركز مقاله اسكاد مركز كلام اسكشاس كسوك مشين عبني هوش يا دواس كله مات شعيب oo aan isku haysan inuu dambi galay isla markaana uusan ka muuqan dareen waxa uu ku faraxsan yahay xasuuqa iyo daadinta dhiigga ummadda Sheekh Bashiir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaan u bandhigay muuqaalka Shucayb oo isku qoslaya waxaana shiiqa oo ka argagaxay ninkan dadka laayay ee aan ku qoomameynayn xumaantii uu geystay oo ku tilmaamay ruux aysan inaba ku jirin insaaniyad runtii aan waraysigaas waxyaalo badan baa iga baxay waxaa ugu muhiimsan ninkaas inuu yahay nin runtii aad maskaxdiisa la bedelay bal waxaa la odhan karaa dareenkiisa ayaa la bedelay qof intaasoo dembi ku dhacay oo waxaasoo dhibaataa geystay haddana dareenkiisa isan ka muuqan wax qoomamaa wax ka xumaasha qof marka la odhan karo xataa insaaniyaddii iyo dareenkii bani aadamnimo in laga saaray oo qofka la odhan karo qalbi kale in loo xiray baa u malaynaysaa ama qofka maaragtay caani loo rakibay dareen ka baxsan dareenka insaaniyadda marka runtii afkaar khaldan oo qofka bedesha oo bani aadamka maskaxdiisa ka dhigaysa maskax kale ayaa ka muuqata meesha islaamku islaam badilo diinteenuna waa ammaan ayaan darana qofkii akhiro janna doonaye ibliisku adeegaya islaamku islaam badilo diinteenuna waa ammaan ayaan darana qofkii akhiro janna doonaye ibliisku adeegaya taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka iyo sirdoonka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare Cumda ayaa markii uu xilka la wareegay waxa uu ballan qaaday in tallaabada koowaad ee hay'addu ay tahay inay meesha ka saaraan dadka ku hoos nool dhagarta kooxda Al-Shabaab ee u adeega kooxda dabeetana ay ka takhalusi doonaan shabakadaha isku xiran ee kooxda Al-Shabaab taasoo iminka dhabaheedii cagta ay saartay hay'addu waxaa jira shabaab ku noole ayaa waxaan halkaa ka ballan qaadaynaa shabaab ku noolaha ayaan marka hore la dagaalami doonaa waxaan la dagaalami doonaa shabaab ku noolaha si aan al-shabaabka ula dagaalamo maxaa yeelay kaas ayaa u ah aasaas asiga ayaa u ah facilities
shucayb isaga iyo kooxdiisu waxay u diyaarsanaayeen inay shacabka soomaaliyeed ku laayaan qoryo bastoolado iyo qaraxyo laakiin taa beddelkeeda waxay ciidanka nabad sugidda ee howlahoodii fashiliye u taagan yihiin inay naftooda badbaadiyaan ummaddana ka badbaadiyaan dhagartooda balse iyagu waxay isku haystaan in laga hor istaagay camal wanaagsan oo ay ku jireen sheekh nuur baaruud gurxan waa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culummada soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay waajib tahay in lala dagaalamo al-shabaab isagoo ciidamada shabakadan fashiliyana ku ammaanay waxqabadkooda iyo dagaalka ay kula jiraan kooxdan waxaana uu shacabka ku booriyey inay ciidamada ku garab istaagaan dagaalka ka dhanka al-shabaab awalan ilaahay baan ugu mahadinaynaa shabakadaas mufsidiinta ah ee ku howlanaa dhiigga muslimka maalin walba inay daadiyaan qabashada la qabtay ilaahay baa ku mahadle waxaa kaloo ku mahadle ciidamadii soo qabtay ee ku guulaystay ayaguna mahad bay mudan yihiin waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka abaalmariyo yacni nabigeenna xadiidku wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam khawaarijta ciidanka la diriri doona ciidanka dhulka jooga kuwa ugu khayr badan wey yani ciidanka khawaarijta laynaya la dagaalamaya xadiid kale wuxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam duubaa liman qatalahum ow qataluuh waxaa janno iskale qofka laaya oo la dagaalama ama asaga ay dilaan qofka dila ama asaga ay dilaan qofkaasi jannuu leeyahay ayuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka in la isu kaashado oo lasoo sheego oo shacabku gacan ay ka geystaan waa waajib islaami ah weeye sababtoo ah dadkani waxba ma reebayaan dumarkii bay laynayaan duqaydii bay laynayaan siyaasiyiintii waddankay laynayaan culummadii bay laynayaan ganacsatay laayeen indhihii iyo aqoon-yahankii waddankay dhammaynayaan masaajidii baa looga fakan waayey marka in la isu bahaysto waa waajib nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qitaaluhum waajibun calaa kulli muslim dagaalka lala dirirayo waajib buu ku yahay qof kasta oo muslina qalbiga kala dirir carabka kala dirir gacanta kala dirir qof walba waajib bay ku tahay shabaab oo gacan la siiyo oo la jeclaado iimaankaa lagaga bixi sababtoo ah ilaahay colkiisa weeye xadiid buu nebigu wuxuu ku leeyahay hum abqadu nnaasi ila allah waa ilaahay dadka uu ugu necab yahay ayagu xadiid kale wuxuu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa waxay ugu shar badan yihiin khalqiga ifka ku nool xataa gaalada ayagaa ka shar badan ilaahay agtiisa gaalada ayagaa ka shar badan munaafiqiinta ayagaa ka shar badan shaydaanka xataa ayagaa ka shar badan hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahy hum kilaabu ahli nnaar waa ehlu naarka aydooda yacni hadda intaan la qabanin shabakadan ashqiyada ee mufsidiinta ah dhibka magaalada xamar ay ku hayeen waan garanaynaa waxbaa la qarxiyey maanta waxbaa la dilay hebel baa la dilay hebel yacni magaaladii o dhan bay khalkhal geliyeen marka ilaahigii subxaanahu wa tacaala fududeeyey in kuwaa gacanta lagu dhigo ilaahay baan ugu mahadinaynaa iyo ciidamadii soo qabtay mahad bay leeyihin midda kale isqarxin ama jaaka inta la gashado la isqarxiyo ama baabuur la isku qarxiyo yaan rabaa aragtida shareecada islaamka horta naftan waa ammaano ilaahay baa nafta qofka siiyey waxaana layna faray nafta inaan ilaalino in la dila naftan waa xaaraan in la qarxiyo waa xaaraan ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha laynina naftiina ha dilina yacni waxay laysku hayaa ood ogtihiin oo mas'ala khilaafiya ah dagaalka jihaadka ahee bannaan qofku inuu isku qarxiyo gaalada taasay xataa culummo badan diidan yihiin oy leeyihiin layskuma qarxinayo isagoo ay culummada qaar banaynayaan gaalada in la isku qarxiyo haddii maslaxa loo arko ama ciidan inaga tabar badan oon si kaloo la yeelo aan jirin in la isku qarxin karo culummo badan sidaa ay iftoonayso laakiin hadda waxaan meesha sooba gelaynin dad muslina in la isku qarxiyo
dilkooduna dee ma banaana. marka ninkani muxuu sameeyey mataqaan asagii oo naftiisa inuu dila xaaraan ahayd wuu dilay, qof kale oo muslin ana ama dad badan oo muslimiin ana wuu laayay. marka naftiisa markuu jaaka ku qarxiyey ama baabuur isku qarxiyey, qaraxa dabka u hoogalay waa dab naara, ma ogtahay weligii ka bixi maayo naartaas. nabigeennaa shiir calayhi salaatu wasalaam qofku aakharo wixii uu isku dilaa lagu cadaabi. haddaad sun isku dishay naarta dhexdeeda unbaad sun naara unbaad cabbi. haddaad meel iska tuurtay naarta dhexdeeda unbaad buur ka galgalanood kulba dhinac u dhici. haddaad mindi isku dishay, haddaad rasaas isku dishay, naarta dhexdeeda unbay waxaasi kugu socon. kii jaaka isku qarxi ama baabuurna naarta dhexdeeda unbay jaakadii ku qarqarxi, baabuurkii uu ku guban kolba. marka kaba bixi maayo naartaas, weligii ka bixi maayo. marka nasiib darradaada adiga oo isle waxbaad dishay oo aakhiraad janno geli oo beenta aad isugu sheekaysaan xoorulciin baad heli oo caawi kula duuli, hadday naarta lagula duulo ka waran. shaki ma laha inaad ehlu naar tihiin. nimanka iyo dumar waxay yihiinba sidaa ku dhaqmaya. marka ilaahay baan kuwaa shartooda ka mangallay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soo dhoweeyo kuwaas oo gacanta lagu dhigo, waddankana laga dahiro. ka takhallusida shabakadahan isku xiran ee kooxda al-shabaab ay ka takhallusayso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxay ka mid tahay mabaadi'da hay-addu ay ku dhaqaaqdo. waxaana uu horay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal cabdiraxmaan xumda uu cilaamiyey in muhiimadda koowaad iyo tan labaad ay hay-addu siin doonto inay bartilmaameysato hogaamiyayaasha kooxda al-shabaab, kuwaas oo sinaba aan nabad hurdo ugu ladi doonin. maanta taargetkeena koowaad amba hadafkeena koowaad waa hogaamiyaashooda oo ku risqi dalbanaya caruurteena, kuwaas waaye. sidaa daraaddeed si officially waxaan halkan ka dhiibayaa ballanqaad qofkii soo sheega hogaamiyahooda cusub ee dila oo ka qayb qaata dilkiisa amba dila, wuxuu leeyahay $1 milyan hay-adda nafsuudaqanka. qofkii ka qayb qaata amba keena asigoo nool si hay-adaha sharciga loo horgeeyana wuxuu leeyahay $2 milyan. waa ballanqaad, waa cadow, waa u qalmaa inaan cadowga sidaa u beegsano. waa qiimahaas waa u qalmaa. muwaadiniinteenaan dhiirigelinaynaa. waxaan hubaa ayagoon u baahnayn ballanqaad inay soo qaqabanayaan, laakiin waa encouragement, waa ballanqaad hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayadoo dowladda soomaaliya la kaashan ay maaragtaa ka hooseysa, madaxda la kaashanaysa ayay ballanqaadkaas bixinaysaa. isku soo wada duubee shabakadan hadda way ka takhallusay dowladda Soomaaliya, waxaana socda wejigii labaad ee laga takhallusayo shabakad ka hoos shaqaynaysa shabakadan oo aan ka mid ahayn kooxda al-shabaab, laakiin maleeshiyadaan sumad lahayn oo qandaraas ku qabay xasuuqa ummadda, kuwaas oo isticmaalayay dukumiintiyo been abuur ah oo loo ekeysiyey dukumiintiyada dowladda Soomaaliya. taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya iyo taliyahooda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare xumda waxa ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen burburinta shabakadan cabsida ka abuurtay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. waxayna haadaan dheer ka tuureen istaraatiijiyada ay muddo ka fakarayeen kooxda al-shabaab, taa oo ay doonayeen inay kaga gacan toogaalaysaan gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho. waxaana hadda taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya uu cagta saaray istaraatiijiyad iyo qorshe kale oo uu kaga takhallusayo afalalka amni darrada ah ee ay al-shabaab ka sameeyaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho ama ay u fuliyaan kooxo gacan saar leh kooxda.